hay-adda wadaniga ee Safe oo kaashanaysa hay-adda Save the Children ayaa maanta qalabyo kala duwan waxay guddoonsiisay 35 arday oo dhameystay xirfadaha farsamada gacanta. Munaasabaddan oo lagu qabtay xarunta hay-adda Safe ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha waxbarashada iyo shaqo-gelinta iyo sidoo kale hay-adda Save the Children. Agaasimaha hay-adda Safe Cabdisaaq Salaad oo ka warbixinaya ardaydan ayaa sheegay in 10 ka mid ah 35 arday ay ku guuleysteen qorshe ganacsiyada ay soo bandhigeen kuwaas oo maalgelin lagu sameyn doono. Halkan waxaa maanta inala jooga arday baratay EBTFET Enterprise Based Training oo aan ku attach gareynay meherado. Ardaydani waxay qalin jabiyeen bishii saddexaad ee sanadkan mashruuc la yiraahdo REFIS oo aan ka wada shaqeyno hay'adda Save the Children oo ay maalgeliso BMZ iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo qaybo kala duwan ka lahaa ayuu qayb ka mid ah ay ahayd farsamada gacanta. Halkan waxaa fadhiya arday isugu jirta 3 xirfadood: qurxinta iyo cilaansaarka, iyo arday baratay faarada, iyo arday kale oo baratay electronicska. Horena waxaa loo siiyay toolka oo qaatay ardaydii baratay dawaarka iyo aluminumka oo maalintii qalin jabinta shahaadooyinka la siinayay ayaa iyagana la siiyay. Inta kalena qalabkooda waa la diyaarinayay. Ardaydani waa arday farsamo ahaan dhisan, badankooduna shaqeeyaan. qaybo ka midana iminka meherado ay leeyihiin loo furan doona haddii Ilaahay ka dhigo. Waxay galeen tartan ku saabsan hal abuurka ganacsiga. Tababar bay qaateen, tababarkii kadibna waxay soo qorteen qorshe ganacsi bay soo qorteen. 10 arday baa chance u helay oo ugu jiray mashruuca. 10 ardayna waa la siiyay awardkii, waa lagu dhawaaqay. Kuwii ugu horeeyayna iminka waxaan filayaa inay diyaar garowga ay ku jiraan inception-kii yagleelka meheradahooda ay ku jiraan. Ardayda qalabka in maanta ku wareejinayna waa kuwa waxa loogu talagalay si aynu u kobaca dhaqaalaha aynu kor ugu qaadno ee bulshadeena nugul, maadaama ay ka yimaadeen xaafado kala duwan oo degmadan Burco ah. Waxa ku jira iyaguna arday ka timi Caynaba oo aan ku neynay iyaguna halkan maanta kale ku gudoomo qalabkii. Qolada Caynaba safarka soo gashayna aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinayaa. Waxay muujiyeen dadaal badan. waxaase aan hubin doonaa qof kasta muddo kadib marka loogu yimaado goobtii uu joogay bal qofka production sameeyay ee wax soo saar sameeyay dhaqaalihiisa qoyska iyo kiisi shakhsigaba wax ka bedelay iyo qofka iska seexda ama qalabka meel kala mariya wax la iskaga hadhaya maaha. sidii aad u qorteen warqadda nootaayada la idinka saxeexay ee ay u adkaa gelitaanka u soo galeysaan halka kooraska inaad ka faa'iideysataan ayuu dabagalkiisuna u socon doonaa. manaha wax ku eeg sanadkan kaliya muddo kadibna waa la idin iman doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. intaas bay yihiin. waan idinku soo dhaweynaynaa xarunta tababarada iyo xirfadaha ee Safe. horena waxa u haydan ardaydii, maantana waxaan idin rajaynaynaa idinkoo ganacsadayaal ah in halkan aynu ku kulmi doono waqtiyo badan. isuduwaha wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale xubno ka kala socday hay'adda Save the Children iyo wasaaradda waxbarashada oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa la dardaarmay ardaydan kala duwan ee maanta halkan lagu guddoonsiiyay qalabkii ay ku shaqo tagi lahaayeen. waxa weeyaan mashruucan maanta ardaydan ka qalin jabinayso ama shahaadooyinka iyo qalabka lagu siinayo waxa weeyaan waa mashruucan ka wada shaqeynaa hay'adda wadaniga ee Safe. mashruucan REFIS baa la yiraahdaa sida magaciisa inaga muuqato. waxa weeyaan waa mashruuc ka shaqeynaya yareynta nuglaanshiyaha dhaqaale iyo deegaan. waxa weeyaan marka qaybtan maanta inoo hor fadhidaa waxa weeyaan waxaan doonaynaa inaynu yareyno nuglaanshiyaha dhaqaale ee bulshadeena. waxaa la idin baray xirfado kala duwan, 5 xirfadood, 2 qole hore u qaatay qalabkoodii hore u qaatay iyo 3 qole ee maanta la guddoonsiinayo toolskoodii. ujeedka xirfadda la idin barayay waxay ahayd in dhaqaalaha bulshada kor soo qaadaan iyo ka qoyskiina iyo ka naftiinaba. maanta xirfad baa lagu baray. xirfadaada aad meel kasta tagto waxa la doonayaa inaad ku shaqaysato oo wax weeyaan marka aad shaqaysatana dhaqaale uu ka soo kordho. 10 arday ee ku guuleystay in ay chance u helaan dhaqaale ay ku yagleelaan ganacsi cusub, iyagana waxa la doonayaa in ay ganacsiga ka mid dhaliyaan oo ay wixii ay barteen ee la baray ee inta lagu soo tabacayay in ay ka mid dhaliyaan. ardayda kale aan chance ka u helin ee aan calaf ku siinina waxa weeyaan lacagtu waxa ma sheegtay xirfadda wax sheegta. xirfaddii baa haysataan idinka sameyn kara lacag inta ka badan iyo mid ka wanaagsanba. marka waxaan idinku dhiiri gelinaynaa
وأن إلهي ذي كبر ينان علمي برتين إن إلهي ذي كان فعه إذا واحد الدنيا إن الدلال كلا تماتان. أنا حان الله يدلني يريد إنه وحبرتين. لبفا إذا ليدن كرها بعينك. علمي جاء برتين. دل حقوق بعها فرسمة عماد. إن فرسمة دي قعنته هرايوسي ودان أو عاد كفائديسان. إذن كفائديستان ورجالك سميسان. دد كانوا كفائديسان. بالله إذن كرها قلادن طبعاً كإلا شيء يا العقد يجوا هلاي حيصورن أدوق العقد ويده أدوق تسكتك أديك حلقة يا بين أتكفايدة بلطو هذا أدوق وقت جاك كفايدة شتو إن هذا أدوق كفايدة بلطو بيزنس سكالات هاي سمايستو وحيالها الله يدين بريانا وحن الله يدين كسوق عنا يا هيا إيه وزارة ده إيه عد ولبا يا وحبرشة إيه واحد يدين شو كوبعينayaan wax idin barayaan inaad idina faa'iideysataan oo dadkiina u faa'iideysaan dalkana u faa'iideysaan mahadnaqayna sayfo iskuulkan sayfo wax idin baray wasaaradda waxbarashada Save the Children dhalinyarada way idin mahadnaqayna idinkana ku soo dhabar adeegtay inay muddada wax barato oo ay u dhabar adeegto qalab baa la idin siinayaa waxa la rabaa inaad shaqo tagtaan tacab baa la idin geliyay lacag baa la idin geliyay hawl baa la idin geliyay muddo la idin ka shaqeynayay intaas oo dhan waxa loo sameeyay in idinkuna wax taransataan dadka ka timaadeenna wax tartaan qarankana joogtaanna wax tartaan waa wax la iskaga daba imanayo oo ay noqonayso in la idin kula xisaabtamo mid walba xirfadii uu bartay waxa la doonayaa inuu ka midho dhaliyo qolada lacagta dheeraadka ah heshay iyadu dee nasiib dadku calafkoodu ilaahay baa arsaaqda bixiya calafkana waa la iska kala leeyahay intiina lacagta dheeraadka heshay meherada loo furayana ciidanku waa must annagu way daba galayna aniga Cabdirasaaq way daba taagnaanayna qofkii laga waayo meheradii marka la yiraahdo waa la furay grant-kii waa la siiyay annagu way dul taagnaanayna gabagabadina waxa halkaasi lagu guddoonsiiyay qalabkii loogu talagalay ardadani si ay ugu fududaato shaqo abuurka qaar kamid ah ardayda ayaana ka dareen celiyay agabkan lagu wareejiyay magacaygu waa Qadan Cabdi Cabdullaahi waxaan kamid ahay ardayda aan ka qalin jabisay bishii saddexaad 2022 waxaan kamid ahaa arday ay wax baraysay hay'adda Sayfo oo ay maalgelinaysay hay'adda Save Children anigu waxaan bartay farsamada la yiraahdo beauty salonka ama qurxinta dumarka oo aan baranayay muddo 6 bilood ah runtii maalintaan baranayay iyo maanta farq weyn baa u dhaxeeya runtii aad baan uga faa'iiday waxaan rajaynayaa inaan noqdo mid ka faa'iideysata xirfadeydaas oo maaragtay wadata oo ka soo saarta ganacsi weyn kana mid noqdo koofiyada waaweyn ee wadanka aan kaloo kamid ahay 10 arday hay'adda Sayfo ay maalgelinayso ee ganacsiga u abuurtay ganacsiga u furayso asxaabteyda kale ee nasiibku u saamixi waayeen waxaan leeyahay insha Allah nasiibkii inuu wanaagsanaan doona calaf baan la cunaa أنا وهم بلينا يا دمانتود. magacay waa Cabdicasiis Mustafa Ibrahim waxaan ahay ardayda ka qalin jabisay xirfadan lagu soo bandhigayay waxaan bartay electronics-ka gaar ahaan furfurista mobilada iyo computeriska waxaan ahay ardayda ka faa'iideystay tababarkii soo socday 6 bilood aad baan uga mahad celinayaa Save Children iyo Sayfo oo barnaamijkan soo baalinayay waxaan kaloo kamid ahay ardaydii ku guuleysatay qorshe ganacsiyeedkii ardayda loo qabtay tartanka waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideysto xirfadayda aanan dhaqaalahayga iyo yani xirfadaydan aan horumariyo ardayda kale aan maanta halka ka wada bahlaysanaa ka qalin jabinayna waxaan rajaynayaa mustaqbal fiican